الكور مصاحبيان هذه ديارات عراعدي أي دولة عذر كسامبيغا قف قبل سoo raacayso kaliya si ay tijaabo u samayso tijaabo maxay ama dad qooba tijaabo lagu sameeyaa tani waa sheekadeena hayga degdegi balse intaana bilaabin ka hor haddii channelku ku cusub yahay fadlan nagu soo biir oo subscribe dheh like na saar sina share garee mahadsanid loo bilaabo sheekadeena madaarka Los Angeles gabdhaha kalkaaliyaasha duulimaadka ee Jane iyo Paula ayaa isu diyaarinayay safarkooda xiga Captain Forrest iyo kaaliyaha duuliyaha ee Willis ayaa la sheekaysanayay iyaga waxayna dareemayaan inaanay rakaab badan helin caawa sababtoo unkadiyo hilaabaa jira Willis wuxuu sidoo kale qaadanayaa xoogaa daawo ah sababtoo ama dareemaya caafimaad wanaagsan kadib kalkaaliyaashu waxaa la kulmaya rakaabka caawa George waa wiil dhalinyaro ah oo had iyo jeer kaligiis duula Beth waxay la socotaa ninkeeda kaasoo qaba cudurka istaroogga ama faaliga sidaa darteedna aan dhaqaaqi karin ama aan hadli karin Sheila oo ah kalkaaliye ciidanka ka tirsan ayaa ka walwalsan duulista halka Louise ay la nasanayso bisadeeda Neil iyo Susan waxay sugayaan ilmo waxayna aad uga baqaan bakteeriyada sidaa darteed waxay nadiifinayaan kuraastooda ka hor intaanay fadhiisan halka Harvest iyo Nika ay yihiin ajaanib aad u faraxsan oo aan si fiican ugu hadli karin Ingiriiska Henry wuxuu keenay qafas ay ku jiraan jiirar markii Ralph isku dayay inuu caawiyo si uu sanduuqa u galiyo khaanada waa la qaniinay oo waxa qaniinay jiirarkii qafaskii uu ku habboonaan waayay khaanadii sidaa darteed kalkaaliyaashii duulimaadku waxay ku qasbeen Henry inuu u diro qaybta alaabta lagu qaado dhanka kale ganacsada Preston ayaa isaguna hindisa sii bilaabaya isagoo u muuqda inuu qabo isla xanuunka Willis hayo oo kale markii ay ugu dambeyn diyaaradii kacday Jenny ayaa xasuusisanay inuu teleefankiisa xidho markuu diidana Henry ayaa ku khasbay inuu xidho labada ninba way xanaaqaan oo dood ayaa dhex marta markaas Jenny waxay dib ugu celisay kuraastoodii iyadoo xasuusinaysa in la xidhi karo marka ay degaan haddii aysan dhaqankooga hagaajin kadib Henry wuxuu shakaansanayaa Jenny isagoo u sheegaya shahaadadiisa PhD-da iyo sida uu xun yahay dhaqanka bulshadu wax yar kadib Henry wuxuu daawanayaa wararka wuxuuna ogaanayaa in xarunta xakamaynta cudurradu ay hareereeyeen dhismo dabaqa oo ku yaala Los Angeles dhanka kale Ralph ma dareemaya caafimaad wanaagsan wuxuuna codsanayaa biyo isagoo eegaya nabarka suulkiisa ku yaala Jenny waxay dareentay inuu u fadhiyo qaab qariiba markii ay hubisayna wuxuu si lama filaan ah ugu soo matay korkeeda oo dhan afkiisa ayaa xumba ka soo baxaysa isagoo dalbanaya inuu diyaaradda ka dego marka kalkaaliyaashii duulimaadku waxay isku dayeen intii karaankooda ah inay daryeelaan dhanka kale bisada ayaa cunaysa matagii dhulka yaalay Jenny waxay ninkii uga tagtaa Paula waxayna aadaysaa inay iska nadiifiso matagii laakiin isla daqiiqadaas Ralph ayaa dhex ordaya marinka wuxuuna riixayaa dhulka wuxuu bilaabayaa inuu ku garaaco albaabka qaybta duuliyayaasha isagoo ka codsanaya in diyaaradda la joojiyo wartalo maba sugooday markaas Willis wuxuu raacayaa maamuuska oo wuxuu xidhayaa albaabka halka Forrest laguga digay kantaroolka dhulka xaaladda jirta Henry wuxuu isku dayayaa inuu joojiyo Ralph laakiin si fudud ayaa looga adkaanayaa isla sidaas oo kale ayaana ku dhacaysa George kadib tiimkii oo dhani ayaa ku biiray Henry si ay u qabtaan Ralph ugu dambeyntiina way miirtirayaan waxay u adeegsanayaan xarga balaastiga si ay u xidhaan gamcihiisa kadib Sheila waxay hubinaysaa inaan qofna dhaawacmin halka Jenny ay si qarsoodi ah u naxayso iyadoo u sheegaysa Paula sida ay ugu guuldareysatay inay faa'iido yeelatay xilliga degdega ee loo baahan yahay daqiiqadahaas Forrest wuxuu ku dhawaaqayaa in la siiyay amar ah inuu dego qof walbana wuxuu u dirayaa kuraastooda diyaaraddu aad bay u ruxmaysaa intii ay hoos u degayso kalkaaliyayaashu waxay dadka barayaan inay madaxa hoos u dhigaan jirka Ralph wuxuu sii socdaa inuusan bireerixdo oo uu madaxa ku dhufto meel markaa Jenny iyo Paula waxay dadaal u galayaan sida ay ugu dhaqaajin lahaayeen kursiga inta ay Paula ku dhibtoonayso suunka kursiga Ralph ayaa soo toosaya isagoo indhihiisu guduudan yihiin wuxuuna ka qaynayaa sanka isagoo si xun u dhaawacaya kadib Ralph wuxuu noqonayaa mid waalan mar kale rakaabka ayaa midoobaya waxayna u riixayaan musqusha iyagoo halkaa ku xidhaya markii ay diyaaraddu ugu dambeyntii degtay Sheila waxay isticmaalaysaa qalabka gargaarka degdega ah si ay Paula u siiso xoogaa dawo ah oo ka ilaalinaysa inay miyir beesho waxayna maryo ku xirtaa wejigeeda laakiin dhiig badan ayaa ka baxaya waxayna u baahan tahay daryeel caafimaad oo degdega Forrest wuxuu ku xanaaqsan yahay sababta kantaroolka dhulku ay ugu sheegayaan inay sugaan xitaa iyagoo xaaladda degdega ah wuxuu go'aansanayaa inuu jabiyo sharciga isagoo dooranaya irid aan loogu talagelin nasiib wanaag Ed oo ah shaqaalaha alaabta dejiya ayaa arkay diyaarad soo socota wuxuuna u furay iridda isla waqtigii saxda ah Forrest iyo Willis waxay hayaan albaabka musqusha ee diyaaradda
si ugu xidhnaado halkaa raaf. qof kasta oo kale wuxuu si ba-an uga baxayaa diyaaradda marka laga reebo beef iyo Kingston, sababtoo ah waxay u baahan yihiin caawimaad oo ma dhaqaaqi karayaan iyagu. wuxuu kooxda u hagayaa dhinaca kale ee iridda, laakiin albaabku waa xidhan yahay oo qofna kama jawaabayo codsigiisa raadiyaha. ma haystaan ikhtiyaaraan ka ahayn in ay raacaan iyagoo dhex maraya albaabka shaqaalaha si ay u dhex galaan qaybta sugitaanka ee madaarka. kooxdu waxay isticmaalayaan jaranjarada. eedna wuxuu gaadhayaa albaabada kale. si kastaba ha ahaatee wuxuu la yaabayaa markuu ogaaday inay dhammaantood xidhan yihiin, taasoon weligeed dhicin. markuu eegay sanduuqa korontada wuxuu xaqiijiyey inay ku jiraan xaalad lockdown ah oo wax walba oo ay sameeyaan laga dhex arki doono kaamiradaha amniga oo weli shaqaynaya. waxaa bilaabmaysa dood ku saabsan waxa la samaynayo, laakiin waxaa soo dhex gashay dhawaaqa siidhiga. waxay ka eegayaan daaqadda waxayna dareemayaan ambalaasyo iyo baabuurta booliska oo bannaanka yaala, balse daaqadii ayaa durba la daboolaya. cod ayaa ku dhawaaqaya in kooxda la geliya karantiil ayna tahay inay sugaan ilaa caawinaad ka imanayso. halkaa markay marayso, saaxiibeel waxaan idinka codsanayaa inaad fidhiyoga leeg saartaan aynuu laabana filimkeenna. rakaabku waxay u yeedhayaan qoysaskooda si ay ugu sheegaan waxa dhacaya ka hor intaysan u midoobin inay ku qayliyaan Jenny, iyagoo u arkaya inay matalayso go'aamada shirkadda diyaaradda. Jenny ma garanaysa sidii ay ku difaaci lahayd, laakiin nasiib wanaag Sheila ayaa soo dhex gashay qaylada si ay u tilmaamto inay alaabta ku dhex sidatay qalab caafimaad oo ka caawin kara Buula inay noolaato dhowr saacadood oo kale. Jenny waxaa raaca Ed iyo dhowr rakaaba si ay u raadiyaan alaabta Sheila, laakiin daqiiqadaas korontadii ayaa tagtay. Meg wuxuu ku hagayaa tooshkiisa. markii ay diyaaradda ku laabteenna waxay ogaadeen in Willis iyo Forrest ay maqan yihiin. Jenny waxay furaysaa musqusha waxayna ka naxaysaa inay aragto dhiig meel kasta yaala. Beriston wuxuu u dhaqaaqayaa inuu soo qaato laabtoobkiisa, wuxuuna ku dhacayaa Kingston oo keligii fadhiya. xaaskiisii waa maqan tahay. markuu kuwa kale la yaabeen waxa dhacayna, Kingston wuxuu indhihiisa ku tilmaamayaa xadhka balaastiga oo dhulka yaala kuwaasoo la calashaday. dhanka kale Ed wuxuu qaadaa dabool dhulka yaala si uu u gaadho god hoose oo toos u geynaya qaybta alaabta lagu kaydiyo. Jenny waxay soo qabanaysaa qalabka caafimaadka ee Sheila, halka Neil uu qori ka soo qaadanaya boorsadiisa. Ed ayaa naxaya markuu xayawaan jiir u eg uu cagihiisa maro, uuna eryayaa isagoo leh waa jiir weyn. laakiin Henry wuxuu u malaynayaa inuu ahaa mid ka mida jiirarkiisii, sababtoo ah wuxuu helay qafiskiisii oo jabsan. markii Jenny ay ka soo baxayso godka waxay eegaysaa hareeraha, waxayna arkaysaa laabtoobkii Beriston oo dhiig ku daatay dhammaadka marinka. Willis ayaa ku hordaya 4 aadin isagoo guuxaya, dhiiguna uu qariyay wejigiisa. waxaana cad inuu zombie isku bedelay si lama filaana. Forrest oo cudur ku qaaday ayaa Jenny gadaal kaga soo baxaya oo soo weeraraya. raggu isla markiiba waxa u soo baxayaan inay caawiyaan, laakiin Feer waxba kama tarayo. isla markaas Neil ayaa toogasho ku dilay iyadoo qaar ka mida dhiiggii Forrest uu wejiga kaga dhacayo. kadib kooxdu waxay ka soo hordayaan diyaaradda. marinka iriddana waxay ka helayaan Kingston oo kursigiisii curyaanka laga tuuray iyo Beriston oo miirla oo qoorta laga qaniinay. meel u dhow Jenny waxay ka helaysaa Beef oo ooyeysa oo caawimaad weydiisanaysa, laakiin si lama filaana ay isku bedelaysa oo ay u soo weeraraysa. nasiib wanaag Jenny ayaa ka orod badata. ragguna waxay riixayaan albaabka si ay ugu xidhaan. kooxdu waxay ku laabataa tiimkoodii hore. Sheilana waxay ku dadaalaysaa inay daryeesho Paula. Susan waxay dhiigga ka tiraysaa wejiga Neil. dhanka kale Henry iyo Ed waxay alaab guri hor dhigayaan albaabka si soombuugu uu uga fogaado. Jenny waxay eegaysaa hareeraha iyadoo helaysa dhibco dhiiga oo dhulka ku yaala, kana welwelsan halka ay ka yimaadeen. ugu dambayntii Jenny waxay u sheegaysaa qof kasta inay aamusaan maadaama kabtankii hore uu dhintay. Sheila waxay sharaxaysaa inkani uusan ahaan cudur la yaqaan. Jennyna waxay xasuusinaysaa tiimka dhismihii wararka ku jiray ee isna la karantiilay. Kingston wuxuu arkayaa jiirindhaad u casle oo u dhow, laakiin si dareem leh ayuu iskugu dayayaa inuu la hadlo tiimka. qofna maqli maayo. jiirkii ayaa madaxa kaga dhacay, wuxuuna ku guulaystay inuu qaniino ka hor intaan George ka tuurin. intii ay raggu jiirka ku dhex qabanayeen baaldi, Sheila waxay daryeelaysaa nabarka. kadib kooxdu waxay ku heshiinayaan inay George iyo Paula
ku xidhaan sanduuq weyn haddii ay dhacdo in iyaguna isbedelaan. Ed wuxuu isticmaalaa golofis si uu u qabto jiirka, wuxuuna dareemayaa in calaamad lugta uga xidhan tahay, taasoo macnaheedu yahay inuu ka soo baxsaday shaybaadh. George wuxuu leeyahay Henry ayaa keenay oo been ka sheegaya jiirarkan, sababtoo ah wuxuu sheegay mar hore inuu isagu qafiska watay jiirarka. Markuu Henry diiday, Jenny waxay u kaxaysaa dhinac si ay uga dalbata runta. Henryna wuxuu ku dhaaranayaa inuusan keenin, isagoo tilmaamaya in jiirarka shaybaadhku aysan soo dhaafi lahayn kormeerka amniga inta ay hab siinayaan si ay isu dhiirigeliyaan. Si lama filaana, Ralph ayaa soo baxaya oo ku boodaya Jenny, isagoo ka xoog badanaya Henry oo rabay inuu joojiyo. Gruubka kale waxay maqlayaan qaylada, waxayna u soo ordayaan inay caawiyaan iyagoo isku daraya xoogooda. Ralph ayuu ku ceejiyaan tuubo, wayna ku guulaystaan. Daqiiqadaas, Ed wuxuu fariin kaga helayaa raadiyaha in kooxda xakamaynta xanuunadu ay ugu dambayntii timid. Kooxdu waxay isugu imanayaan albaabka, laakiin 4 askari ayaa soo gelaya halka ay iyaga bannaanka u sii dayn lahaayeen. waxaa qori ku qabanayaan kooxda iyagoo qaadanaya jiirkii iyo qorigii Nail. Kadib waxay u tegayaan Paula iyo Kingston si ay ugu mudaan irbado. Kooxdu waxay dalbanayaan sharaxa, laakiin askartu waxay leeyihiin waa borotokool kaliya. Askartu waxay markaas dalbanayaan in kuwa kale iyaguna ogolaadaan irbada. Qof kasta wuu ka labalabeynayaa. Isla markaas Louise ayaa si mutadawacnimo u soo bandhigaysa marka hore, laakiin ka hor inta aysan irbada lagu mudin, xisadeedii ayaa qoorta ka qaniinaysa oo cararaysa. Intaa kadib isla markiiba askari ayaa toogtay, isla markaana odaygeedii oo curyaan ahaa ayaa ugu dambeyntii isbedelaya oo zombie noqonaya, kadibna ku boodaya ninkii si uu u qaniino. Askarigii kale ayaa odaygii toogasho ku dilaya, waxayna isku dayayaan inay saaxiibkood taxaystaan, balse waxay ogaadeen in albaabkii xidhan yahay. Waxay xabadeeyaan albaabkii, kadib markii uu furmana way baxaan. Isla markiiba kooxo kale oo dibadda jooga ayaa toogtay, wayna ka tegeen, balse mid ka mid ah askartii oo ahaa warkiisa ayaa nool. Kooxdu waxay gudaha u soo jiidayaan wakiilka badbaaday ka hor inta aysan albaabka xidhin. Daqiiqadaas waxay maqlayaan guuxa dadka cudurka qaaday oo soo dhowaanaya, marka waxay u ordayaan inay ku dhuntaan konteynerka dhexdiisa. Susan waxay la istaagtaa Nail oo xulba afka ka keenaya, una muuqda inuu isbedeli raba mar dhow. Kadib kooxdu waxay gudaha u soo jiidaan Nail iyagoo sharaxaya inuu isna cudurka qabo. Kadib markay xidheen konteynerka, Sheila waxay tilmaamaysaa in irbad kasta ay midab gaara leedahay, taasoo macnaheedu yahay in qof kasta wax gaara la siinayay ee aanay ahayn borotokool keliya. Henry wuxuu muujinaya inuu soo qaatay qori, wuxuuna ku khasbaya askarigii inuu qirto waxa uu og yahay. Askariga ayaa runta sheegaya, waxaana soo baxday inuusan ka soconin kooxda xakamaynta cudurrada, dhab ahaantiina uu la jiro ururka argagixisada, kiimikada iyo bayolojiga, kaasoo ka hoos shaqeeya amniga gudaha. Mid ka mid a unugyadooda ayaa tegay dhismaha Los Angeles saacado ka hor, laakiin qofna kama soo bixin. Saqafka sare waxay ka heleen shaybaadh ay leeyihiin koox diineed. Waxay isku dayeen inay horumariyaan dawo, laakiin waxay ka dhigtay mid ka sii daraysa, taasoo macnaheedu yahay in kooxdan diyaaradda soo raacday lala rabay inay noqdaan tijaabada xigta ee bini'aadanka. Kadib markii la xaqiijiyey in jiirarku sidaan cudurka, askariga ayaa qorigii ka qaaday Henry uuna isdilay ugu dambayntii. Nika waxay gashay xaalad naxdin leh, halka Ed uu xasuusto in terminaalkan ay badanaa daadadkiisu qariyaan biyo-mareenadiisa oo duuga awgiis, taasoo macnaheedu yahay inay ka baxsan karaan haddii ay helaan godadkaas. Si lama filaan Willis ayaa ka soo muuqanaya daroolka konteynerka dushiisa ah, wuxuuna qabanayaa gacanta Ed. Markaas Henry wuxuu isku dayaa inuu toogto, balse wuxuu ogaaday inuu rasaas haysan. Ed wuxuu u sheegayaa George inuu riixa badhan kor u qaadayo konteynerka, uuna ku cadaadiyo Willis birta saqafka. Kadib kooxdu waxay ka baxayaan konteynerka, Edna wuxuu ku hagayaa goobtii godku ku yaalay, halka Jenny ay dareemayso in Henry uu maqan yahay. Nika waxay socotaa gadaasha, sida mafilaan ahna waxbaa jiitay oo ka fogeynaya kuwa kale. Isla markaas kooxdu waxay u degdegayaan jaranjarada si ay u baxsadaan. Henry isagoo qarsoodi ayuu boorso ka soo saaraya qori kale. Markay kooxdu ordayaan, Jenny way turuturoonaysaa, waxayna arkaysaa Paula oo iyaduna isbedeshay. Jenny waxay aqbalaysaa in saaxiibteedii isbedeshay oo ay ka tagtay, waxaana isticmaashaa bir si ay ula dagaalanto ilaa ay ka turta meesha sare iyadoo dilaysa saaxiibteed. Kadib kooxdu waxay gaadhayaan xafiiska ay ka raadinayeen lashqadaha madaarka, kuwaasoo tusaya waddo dhex marta derbiga si ay u helaan godka biyo-mareenka ee ay ka bixi lahaayeen. Dhanka kale, George wuxuu muujinayaa inuu baadhay boorsadii Henry, dhexdeedana wuxuu ka helayaa dukumentiyo shaki leh oo diiwaangelinaya tijaabooyin shaybaadh iyo sanduuqyo qarsoon. Daqiiqadaas Susan iyo Nail
oo zombie noqday ayaa isku dayay inay weeraraan, laakiin Henry ayaa dib u soo laabanaya oo labadoodaba tooganaya isla waqtigii saxda ahaa. Ed wuxuu dareemayaa in Henry la qaniinay. George-na wuxuu fursad u helayaa inuu furo sanduuqa isagoo helaya dawooyin iyo irbad. Henry ugu dambeyntii wuxuu qiranayaa inuu isagu keenay jiirarka, wuxuuna sharaxayaa inuu isagu qayb ka yahay kooxdii diimeedka ahayd ee uu askarigu sheegayay. Ujeedadoodu waa inay dhulka ka nadiifiyaan bini'aadanka, kuwaasoo sii kordhinaya rabshadaha iyo burburka maalin kasta. Henry wuxuu sheegayaa inuu dili doono Jenny haddii George uusan u dhiibin dawada. Markaas Ed ayaa ku boodaya si uu u joojiyo, balse wuu tooganayaa wuuna dhintay. Kooxda kale hadda way cabsanayaan, waxayna u ogolaanayaan Henry inuu qaato dawada, taasoo uu ku qasaya dhiigga nabarkiisa ka soo baxaya, kuna daraya isha isagoo sharaxaya inay kooxdiisu taageerayaal ku leedahay ururo kala duwan oo siyaasadda ka mid ah. Sidaasna uu jiirarka ku soo dhaafiyey qaybta jankinka ee madaarka diyaaradaha. Hadda Henry wuxuu diyaar u yahay inuu baxo, wuxuuna rabaa inuu George u kaxaysto la haysta ahaan. Jenny waxay isku daydaa inay joojiso, laakiin Henry ayaa dhulka ku tuuraya oo la baxsada wiilkii yara iyo naqshadiiba. Jenny aad bay u werwaraysaa. Markaa Sheila ayaa horbaxaysa. daqiiqada kadib Jenny iyaduna way soo baxaysaa, waxaana helaya Bariston oo isbedelay. Eryasho ayaa bilaabmaysa. Baristonna wuxuu ku dhow yahay inuu qabto. Markaas Jenny ayaa meel u korta, kadibna markuu soo karo isna waxay madaxa kaga garaacaysaa dabool ilaa uu ka dhinto. Kadib waxay sii anbaqaysaa raadinta George, waxayna qaadaysaa waddo kale. Markay aragta Nika oo isbedeshay oo taagan meel u dhow, kadib waxay ka gelaysaa qol kale, waxayna ku dhacaysaa Sheila oo soo qaadatay muraayadda indhaha ee askarta. waxay u gelinaysaa Jenny muraayadii, waxayna u sheegaysaa in la qaniinay. Markaa waxay ka codsanaysaa Jenny inay George u tagto, iyaduna ay ka jeedin doonto zombiyada kale. Sheila waxay ku laabanaysaa qolka weyn, waxayna bilaabaysaa inay qayliso si ay u soo jiidato dadka cudurrada qaba ee kale, kuwaas oo isla markiiba ku boodaya bartaasna ku qaniinaya. Jenny waxay helaysaa dalool derbiga ku yaala oo Henry uu furay si uu godmareenka u raaco. Markay rabto inay gashana, Louis ayaa qabanaysaa, iyadoo isticmaalaysa bir ayay ku dhufanaysaa Louis ilaa ay ka dhacdo. Kadib Jenny waxay dhex lugeynaysaa qaybta u dhaxaysa derbiyada, iyadoo raacaysa dhibcaha dhiigga ee dhulka ku yaala, kuwaasoo u muujinayaan muraayadda ay xidhan tahay. Way cabsanaysaa markay aragtay xayawaano, laakiin waa jiir caadi ah ee maaha kuwii shaybaadhka. Iyadoo raacaysa raadka dhiigga, Jenny waxay helaysaa nashqadii iyo shaadhkii Henry oo yaala jaranjarada geysa godmareenka. Waxay eegaysaa hoos oo ay helaysaa George, kaasoo sharaxaya in dawadii aysan shaqaynin. Henryna uu isbedelay. Iyadoo iska indhatiraysa digniinaha George, Jenny hoos ayay u degaysaa, waxayna dareemaysaa dhiig ku dhacaya maryaheeda si lama filaana. Henry ayaa soo muuqanaya oo weeraraya, taasoo ku sababaysa inay muraayadihii ka dhacaan. Intay Jenny ku dadaalaysa inay iska celiso, George ayaa muraayadihii gashanaya oo qorigii qaadanaya, Henryna tooganaya. Hadda iyadoo xor ah, Jenny waxay dib u qaadanaysaa muraayadihii, waxaana isticmaalaysaa bir si ay Henry madaxa uga garaacdo oo ay u dhammaystirto. Daqiiqadaha olol weyn ayaa ka soo muuqanaya daloolka, taasoo macnaheedu yahay kooxaha bannaanka jooga waxay gubayaan terminaalka oo dhan. Albaabka laga baxo, nasiib darro waa xidhan yahay, laakiin Jenny waxay helaysaa mar inay alaabtu maraan oo ay daboolka ka qaado. George aad buu u cabsanayaa inuu halkaas hoos ugu dego. Markaa Jenny waxay siinaysaa muraayadihii, waxayna u gelinaysaa inuu isagu hormaro si uu u nabad galo. Inta aan maqlayaan qaraxyada bannaanka ka dhacaya, labadoodu waxay u socdaa si dhaqso ah intii suurtagalka ah. Si kastaba ha ahaatee, Jenny waxay bilaabaysaa inay daasho, waxayna ogaanaysaa in cudurkii ay qaaday, sidoo kalena ay isbedeli rabto goordhow. George dib ayuu u soo jeedsanaya, wuxuuna dareemaya inay matagayso, haddana uu diidaya inuu ka tago. Jenny waxay ogolaatay inay sii raacdo isaga dartii. Ugu dambayntii waxay helayaan meeshii looga bixi lahaa, taasoo ay ku xayiran yihiin biro xayndaab ah. George wuxuu ku guulaystaa inuu si fudud uga dhex baxo. Markuu mar kale soo jeestana, Jenny oo isbedeshay ayaa biraha ka soo dhex gashay si ay u weerarto. Nasiib wanaag, biraha kama soo dhex bixi karo jidhkeedu. George-na wuxuu ku baxsanayaa faraciidiyaho. Kadib George wuxuu ugu dambayntii ku guulaystaa inuu ka baxsado madaarka. Dhanka kale, bisadii Louis iyaduna way baxsanaysaa, waxayna u gudubtaa dhanka magaalada. Halkaas ayuuna ku dhammaanayaa filimkeennu. Haddii channelkayga kugu cusub yahay, fadlan nagu soo biir oo subscribe dheh, like saar, siina sheer garee. Mahadsanid.